xamaas ayaa galabta mar kale qaaday mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa taariikhda. Warbixintan caawa waxaan ku dul istaagi doonaa 2,000 oo askari oo Yuhuud ah oo la shaaciyay inay galabta ku dhinteen duqayn ay geysteen diyaaradaha ururka Xamaas garabka military guutada Qassam. Haddaba maxay tahay wacdaraha ay dhigeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al-Zawari? marka hore daawadayaal muuqaalkan sheer gareey ah oo gaarsiiyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si aan ugu helino walaalaheen ku sugan dhulka Falastiin. hagaag aynu ku bilownay weeraro dhanka cirka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gaar ahaan diyaaradda Al-Zawari oo ay leeyihiin ururka Xamaas guutada Qassam ayaa galabta mar kale wacdaro ka dhigay guud ahaan magaalooyinka waaweyn oo uu dagaalka ka holcayo ee dhulka la haysto ee Falastiin. weerarada ay qaadeen ciidamada gaarka ah ee Xamaas ee loo yaqaan guutada Qassam waxa ay u muuqdeen galabta kuwo aad u sareeya xirfadooda. waxaa la wariyay in la arkayay tobaneeyo gantaalo ah oo ku soo hoobanaya magaalooyinka waaweyn ee ku dhow magaalada Tel Aviv caasimadda Yuhuudda ayaa galabta waxa ay weeraradan culus ku tilmaameen mid mucjiso ah kadib markii guutooyinka hubeysan ee ka tirsan ururka Fatah gaar ahaan guutooyinka Qassam ay galabta madaafiic gaar ahaan nooca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku hoobiyeen guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Yuhuudda. haddaba dad badan ayaa isweydiinaya Yuhuudda hogaamiyaha ay ka baqaan oo ay sida waayeen u doondoonayaan waa kuma. haddaba warbixinteena waxaa diiradda ku saari doonaa Yahya Sinwar, hogaamiyaha Xamaas ee Gaza oo Yuhuuddu iminka si weyn u doondoonayso kadib markii dagaal cirka badda dhulka uu ka qarxay dhulka la haysto ee Falastiin. waa ninka koowaad ee sida weyn ay u baadigoobayso Yuhuudda. Yahya Sinwar waa hogaamiyaha kooxda Xamaas ee gudaha Gaza oo ah magaalo xebeed dhan walba ka go'doonsan oo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 bilyan oo qof oo Falastiiniyiin ah. waxaana Yuhuuddu ay ku tilmaamtay inuu yahay hoggaanka weerarka lagu qaaday dhulka Yuhuudda gaar ahaan weerarkii Sabtidii ka qarxay marinka Gaza. afyeen u hadlay militariga Yuhuudda oo la yiraahdo Daniel Hager ayaa sheegay inay agtooda uu ka yahay ninkan mucjiso taasoo ay xitaa ay ku tilmaameen maska aan la arkin. Yahya Sinwar waa ninka ugu sarreeya hoggaanka Xamaas ee Gaza waxaana loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee kooxda iyo ninka labaad ee ugu awoodda badan Xamaas kadib Ismaaciil Haniya oo ah hogaamiyaha guud ee kooxda. laakiin dadka sida weyn u yaqaana hogaamiye Yahya Sinwar waxay sheegaan inuu yahay nin isqariya oo aan weligii la arkin inta uu hogaaminayay guutooyinka ka mid ah ururka Xamaas. Ismaaciil Haniya sidoo kale waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha sida weyn ee Yuhuuddu u doondoonayso kaasoo ku nool dalka dibaddiisa gaar ahaan magaalada Dooxa. haddaba waxaa la isweydiinayaa Yahya Sinwar waxa uu ku dhashay xirada koonfurta marinka Gaza ee qaxootiga ee la yiraahdo Khan Yunis sanadkii 1962 isagoo daraasaadka carabiga kaga taqasay jaamacadda islaamiga ah ee Gaza 3 jeer ayaa la xiray 1982 1985 iyo 1988 markii ugu horeysay waxaa la xiray isaga oo jaamacadda dhigta halkaas oo ahaa hogaamiyaha ardayda. waxa uu madax ka noqday garabka amniga Xamaas bartamihii 1980 isagoo mas'uul ka ahaa weeraro gaadma ah oo loo geystay kooxda Yuhuudda. haddaba ninka labaad oo Yuhuuddu si weyn u doondoonayso waa Mohammed Daif, hogaamiyaha ciidamada gaarka ah ee Xamaas guutooyinka Qassam. waa ninka ay ku tilmaameen inuu yahay mucjisada labaad ee aan la arkin ee Xamaas hogaamisa taas oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin ka badbaaday dhowr isku day dil oo Yuhuuddu soo maleegtay gaar ahaan sirdoonka Mossad. Mohammed Daif waxa uu weeraro dhowr jeer bahalnimo ah u geystay kooxda Yuhuudda isagoo 16 jeer ka badan ka badbaaday shirqool ay kooxda Yuhuuddu soo maleegtay. Mohammed Daif weligii lama arkin isagoo isticmaalaya aaladaha isgaarsiinta sida taleefanada iyo wax u dhow mana ka soo muuqan weligii shaashada. wuxuu 20 sano kahor ka badbaaday duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen Yuhuudda laakiin waxa uu ku waayay gacantiisa midig lug iyo sidoo kale ilaa hadda waxa uu ka mid yahay ragga loogu doondoonista badan yahay. ragga kale oo ay Yuhuuddu doondoonayso waxaa ka mid ah Ismaaciil Haniya, hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas. hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya waxa uu ku nool yahay dibadda Gaza si gaar ah Qatar ma ahan
nin fudud oo si sahlan oo yuhuudda ku heli karto marka loo eego muuqaalada uu baraha bulshada ku baahiyo oo carab ku dhalisa kooxda yuhuudda. Ismaaciil Haniya ayaa ku sugan magaalada Dooxa halkaas oo uu magangelyo siyaasadeed ku joogo. waa ninka ugu weyn howlgallada qorshaysan ee ka dhaca Gaza iyo guud ahaan meelaha ku teedsan Yuhuudda, isagoo sidoo kale fariimo culculus u diray Yuhuudda. Waxa uu horey uga badbaaday isku day shirqool dil ahaa oo ay fulisay Yuhuudda isagoo ka qaxay Gaza sanadkii 2016 markaas oo uu si weyn ugu soo cabaxay howlgallada iyo weerarada qorshaysan.